caawa waxaan halkan u fadhiistay inaan ka hadlo arrimo xasaasi ah aniga oo ah aqoon-yahan Axmed Diyaar Ismaaciil waxaan doonayaa inaan caawa halkan ka hadlo arrimo aad iyo aad u qiimo weyn marka ugu horeysa waxaan halkan ka hambalyaynayaa beelweynta Garxajis shirkii ay ku qabteen buurta gacan libaax qodobadii ka soo baxay waanan ku raacsanahay insha Allahuna waxaan Ilaahay ka baryayaa inay qodobadaasi noqdaan kuwa midho dhala waxa kaloo aan ku darayaa anigu qodobadaas ay ka hadleen beesha Garxajis hore ayaan uga hadlay haddii aynu ku noqono systemka ama qaabka ay u dhisan tahay imika dawladda Soomaaliland maaha qaab isu dheelitiran waxaa jirta cadaalad darro fara badan oo jirta cadaalad darradaas imika may soo bilaabmin hore ayay u soo jirtay ilaa intii dawladda kulmiye ay wadanka ay timi cadaalad darradaasi waa mid ku salaysan qaab qabiil resource-ka ama dawladda looma sinna kontraadyada ama waxyaalaha kale dadku macni iyagana looma sinna waxaad moodaa in gaar ay nooshahay oo in wax walba in gaar ay isku koobtay markaas shirkan wuxuu ku base garaysan yahay ama haddii xaqiiqda laga hadlo waxa weeyaan cadaalad darrada ka jirta Somaliland imika 10 sano aynu soo dhaafnay inkastoo aad moodo inay la soo raageen oo ay ahaydba in mar horeba laga hadlo oo beesha Garxajis mar horeba ay ka hadlaan haddana maanta waan ku raacsanahay waanan taageerayaa shirkaas sida nabadgelyada ku soo dhamaaday ay ka soo baxeen qodobada wanaagsan oo ah in ummadda reer Somaliland daraf ilaa daraf ay u sinaadaan resource-ka ama ay maskabka u sinaadaan oo wadanka lagu soo dabaalo qaab cadaalada waxa kaloo wax lala yaabaa oo isweydiin leh oo dadka idaawanaya ay inay isweydiiyaan ay tahay oo macni in badanna aan ka hadlay oo waxay taasi cadaalad darrada Somaliland aan ka hadlay oo dad badan oo igu qabsaday ay jiraan oo igu dhaliilay oo macni ilaa heer la gaaray inay ay qabsadaan qabyaaladaysan waxaan ka hadlayay imika waa 7 qodob aan ka hadlay aan waqtiyada aan soo dhaafnay media ka hadlayay waxaan ka hadlayay qodobadaas bay haayeen caawana waxaan aad ugu faraxsanahay inay intaasoo salaadiina oo kuma salaadiintii Somaliland kuwii dadkii aqoon-yahankii Somaliland oo dhan inay isugu tagaan maanta iyo labeentii Somaliland buurta gacan libaax in ay marxaati furaan maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanay haddii aan ku noqdo waxyaalaha aan ka hadlay for example haddii nimka eegno qaab dawladeedka ay u dhisantahay Somaliland kastamka balgubadle waxba laga cashuurayo oo kastamka kala baydhna waa laga cashuuraya waxaan xasuustaa gaari jaada oo lagu balgubada laga soo cashuuray oo cashuurtiisii la diiday oo lagu celiyay la yiri ansax ma aha lagu celiyay kastamka kala baydh war kastamka balgubadle meel Somaliland ahayn midda kale meelaha resource-ka ama ay ka soo baxaan wadanka halbowlayaasha ah sida dekada oo kale sida kastamada oo kale qaarna waa la qaramaynayaa oo cidii la doonaan loo magacaabay imka airport-ka oo kale waa la qarameeyay kolba cid baa la keenaa laakiin imka dekada berbero oo dhan dekada berbero markaynu ku noqono ilaa iyo intii 28 sano dad isku beelunba maareeyo ka ah kastamka kala baydh waa saas oo kale kastamka saylac waa saas oo kale marka waxa loo baahan yahay ay dadkan ka hadlayaan waa cadaalad darradaas maaha wasiir iyo waxaas wax laga hadlaya waxa weeye waa resource-ka dalka in loo qaybsado si macni siman oo ummadda Somaliland oo dhan ay u siman yihiin ilaa gobolada oo dhan maanta waxaynu nahay qaran la yiraahdo Somaliland
qarankaa somalilan way dadku inay u sinaadaan baa fiican. iminka iyo gabagabadii waxaan halkan fariin u marinayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi. waxaan rajaynayaa inaad idaawato, haddii kale waxaan halkan u sheegayaa dadkiisu inay iiga gudbiyaan fariintan caawa halkan aan uga dirayo. dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag guud ahaan. haddii aan hoos u eegno waxa ciidamadii puntland iyo ciidamadii somalilan waxay isku hor fadhiyaan tukaraq. dagaalkii ceelaf weyn labadii reer ku dagaalamay way isag fadhiyaan. suldaan wabar oo mar hore ka shubayna imika waa kan soo noolaaday. dowladda soomaaliyana waxay wadaa dagaal diblomaasiyadeed oo caalamka oo dhana. markaa madaxweyne waxaa lagaa rajaynaya maanta inaad go-aan aad qaadato oo aad galdaloolooyinkii ama cadaalad darrada ka tagtay dowladdii hore siiraanya inaad gufayso oo aad arrimaha xanaftii aad dhammayso. dabadeedna aad markaas arrimahan aad wax ka qabato, dhabarka ha usii jeedin madaxweyne. arrimahan waa inaad wax ka qabato, waa arrimo xasaasiya. maanta somalilan adiga gacantaaday ku jirtaa. maanta somalilan waxay dul saarantahay seef laba af leh. maanta iyo badbaado somalilan waa inaad aqbashaa qodobada ka soo baxay shirka garxajis. markaa madaxweyne arrimahaasoo dhanna inaad xaliso wax ka qabato oo aad macnihi aad iyo aad shaqo badan u qabato dadaasho ayaa loo baahan yahay. waxaana ha dhayalsan, waa inaad dhammaysaa. haddii kale somalilan meel madow bay ku socotaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.